Hello, everybody. Welcome again. Welcome to Aqoonbada Private School and Community Training Center. Waxaynu ku jirnay safarkeenaynu ku sharaxnay 12 tennis. Waxaynu hore u soo sharaxnay waxa uu tennisku yahay iyo laba tennis oo hore. Waxaynu waqti xaadirkan ku guda jirnaa tenniskeena saddexaad ee present perfect tense. Inta aynan u guda gelin casharada kale ee tenniskan uu leeyahay, bal waxaynu isku daynaa inaynu macnayno present perfect tense. Ereyga present waa wax jooga oo xaadir ah. Perfect waa saxsan. Tense-na waa waqti. Haddii intaa la isku daro afkeena hooyo waxay ku noqonaysaa waqtiga saxsan ee hadda ama waqtiga saxsan ee jooga. Labadaasba way noqonaysaa. Aynu usii guda galno casharada tenniska. Present perfect tense. What is present perfect tense? Definition. Present perfect tense is used to express for an action which has just completed or finished. It is used waxaa loo isticmaalaa to express inuu muujiyo for an action ficil which kaasoo has just completed kaasi oo dhammaaday or finished amba la dhameeyey. It's used waxaa loo isticmaalayaa to express inuu qeexo for an action ficil which kaasoo has just completed kaasoo hadda la dhammaystiray or finished amba la dhameeyey. Formulation qaacidadiisa. Qaacidadu waa subject plus have slash has plus verb of past participle plus object. Waa verb 3. Example tusaale. Waxaan u baahanahay subject. Subjectigaygu waa I. I ma waxaan raaciyaa have mise has. Marka la joogo present perfect tense, toddobada pronoun ee kala ah you iyo we iyo they iyo I waxay ku shaqayn doonaa have. Marka halkan I baa inoogu jirta I have bay noqoni. Verb 3-geen wuxuu noqon doonaa seen. I have seen. Objectigeen waa them. I have seen them. Just iyaga waxaan arkay hadda ayaan arkay. Waana hore kugu sheegayo waa ficil amba dhacdo imika la dhammaystiray. Ninkaasi hadda ayuu arkay nimanka. Marka waxay ka dhigan tahay ficilkani right now buu dhammaaday. Negative-ku I have not seen them just. Iyaga ma aanan arkin. Question. Have I seen them just? Miyaan arkay iyaga? Negative with question. Haven't I seen them just? Miyaanan iyaga arag hadda? Halka waxaad ka dhigtaa haven't intaad ka daysid waa have iyo not baa la isku daray. Waxaad dhihi kartaa have not I seen them just. Soomaali maxay ku noqon doontaa I have seen them just. Hadda ayaan arkay iyaga hadda ma aanan arag. Miyaan arkay iyaga hadda? Miyaanan iyaga arag hadda. I hope you understand present perfect tense. Waxaan rajaynayaa ardaydu inay fahmeen tenniska saddexaad ee tennisyada. Isku soo noqod wanaagsan iyo kulanti wanaagsan oo isku arki doono keena saddexaad. Thank you.